jaamacadaha ardaydu doormiyada ay galaan ay dayacaad ka muuqato biyihii dayacaad ka muuqato electric system dayacaad ka muuqato meelaha ardayda cuntada loogu sameeyay kitchenkii dayacaad badan ka muuqato jaamacadihii saddex qaybood baa loo qaybiyay saddexda qaybood oo ah jaamacado hadda kadib research universities la yiraahdo ama jaamacadaha cilmi baarista iyo applied university oo jaamacadda Jigsiya ay kamid tahay jaamacadaha waa 15 kuwaasina qaybtaasi oo ah qaybta labaad oo iyagana rabo mustaqbalka inay يعني xirfadlayaal soo saaraan dad warshadaha iyo industrialka la shaqeeya xirfadlayaal oo yani waxooda markasta ay practical ay la xiriiro jaamacadahaas ayaan ku jirnaa marka waa kulankii labaad oo jaamacadahan applied university-ga inta badan maadaama anagu applied ka midnahay haddana dhinaca kale dhismayaasha jaamacadaha marka la dhisay jaamacadaha qaybtii labaad ama second generation university waqtigii qaybta labaad jaamacadihii la dhisay oo mashruuc GIZ la yiraahdo lagu dhisay oo runtii low cost ahaa yani waqtigii sidii loo dhisay maadaama jaamacadaha baahidoodu degdeg loo qabay yani markii jaamacadaha dhismahooda la dhisay wuxuu ahaa yani sidii loogu talagalay daraasad ku filan lama samaynin baajidka waqtigaas loo qabtay ama jaamacadaha dhismahooda loo qabtay mashaariicii waqtiga jaamacadaha la dhisay ayaa ahaa yani mid tayada hadda maanta ay ku shaqeeyaan aanu qalbin bu ahaa saa daraadeed jaamacadihii 15 sano markay jireen waxay noqdeen ardaydii meelihii ama hostelkii ama dormitoryadii ay galayeen iyo kilaasyadii iyo kulli jaamacadii oo dhan burbur badan iyo dayacaad badan baa ka muuqata jaamacadahan jaamacad walba keligeed maadaama ay miisaaniyad ku filan haysan ma dayactiri karayso marka waxa la baahidii waa la dareemay arrintii in laga wada hadlay noqotay wasaaradda waxbarashada ayaa hawshan hogaaminaysa waxaa la damcay marka jaamacadihii inaan sidan ay yihiin maadaama lagu wadi karaynin in la dayactiro oo mashruuc ahaan loo qabto oo mashruuc jaamacado dhan second generation-ka ah ama waqtigaasi low cost-ga lagu dhisay in yani dayactirkoodii hadda kadib sida ay ku taagan yihiin ku sii socon kareen hawshaas marka waxa la sameeyay wasaaradda waxbarashada federaalka iyadoo hogaaminayso ayaa waxa la sameeyay daraasad dhameystiran oo jaamacadaha 15 ku qusaysa daraasaadkii la soo sameeyay ayaa lagu soo bandhigayaa meesha yani jaamacadaha waxyaabaha ay ku fiican yihiin iyo waxyaabaha negative-ka ay u baahan yihiin in dayactir loogu sameeyo ama wax laga qabto waxa u badan inta badan oo jaamacadaha hadda ilaa hadda jaamacadii la soo bandhigay kamid ah in jaamacadaha ardaydu doormiyada ay galaan ay dayacaad ka muuqato biyihii dayacaad ka muuqato electric system dayacaad ka muuqato meelaha ardayda cuntada loogu sameeyay kitchenkii dayacaad badan ka muuqato service facility badan ay dayacaad ka muuqato marka arrimahaasina waa arrimo u baahan resource badan ama budget u baahan weeye wax jaamacad walba kaligeed ka bixi karaysa maaha marka daraasadan la sameeyay wasaaradda ayaa hogaaminaysa dhamaan marka la soo bandhigo waan ka wada hadlaynaa dooduna waxay aakhirka noqon doontaa in jaamacadahaasi mashruuc sidii loogu qaban lahaa iyo hawlahaas wax looga qaban lahaa in ay la bilaabo ay noqon doontaa hadii alla ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada faalladaadu waa muhiim Dagaaran Media waa saaxiibka dadweynaha